cudurrada ugu badan sanadihii la soo dhaafay bini'aadanka ay u dhimanayeen waxaa la sheegay in ay yihiin cudurro bini'aadanka ay gacmahooda ku samaysteen ama man-made waa cudurro 30 sano ka hor yaraa aad u yaraa dadka u dhimanayeen ay u badnaayeen dad da' ah laakiin maanta ay cudurradaas dilayaan dadka dhalinyarada waxaa number 1 ka ah wadna xanuunka waxaa la sheegaa wadna xanuunka in number 1 uu ka yahay waddankan Ingiriiska dadka cudurrada ay u dhintaan waxaana keeno lifestyle-ka ama noloshii bini'aadanka oo isbedeshay xilliyadii hore waxaan ku siinaa example yar si ay la fahanteed insha Allah xilliyadii hore dadka inta ugu badan waxay isticmaali jireen bus ama taxi ma jirin waxyaabahan fududeeyay uberka guriga albaabkiisa ku soo istaagay qofka at least waxay ahayd ilaa main roadka ama wadada inuu lugeeyo uu bus ka raaco ama taxi ka raaco laakiin maanta guriga albaabkiisa soo istaaga lagama yaabo ina xataa 2 daqiiqo dhaqaaqdid guriyaha inta ugu badan waxay lahaan jireen jaranjaro qofka waxa laga yaabaa inuu jaranjaradaas koro wadnihiisa u shaqeeyo cuntada cuni jirnay waxay ahayd cunto guriga lagu kariyay oo nadiif ah laakiin inta ugu badan maanta dadka cuntooyinkan fudud waxa ku badan faatka waxay keenaan obesity qofka inuu aad u cayilo cayil caadi aan caafimaad ahayn cayil waxa jira caafimaad iska ah laakiin cayil zaa'id oo mataqaana xadka dhaafi kaas wuxuu keenaa wadna xanuun cudurka sokorta waa cudurka labaad oo hadda aad loogu dhinto asagani xilliyada hore aad loo control jiray oo bini'aadanka exercise-kiisa badnaa cunto caafimaad badan ay cuni jireen laakiin maanta qofka maadaama socodkiisa yaraaday cuntooyinkiisa aad u xumaadeen controlka sokorta ama dadka sokorta uu ku dhacay gaar ahaan type 2 aad u batay marka waxay keentay in dad ay u dhintaan waxaa jira cudurro laga qaado stress xilliyada hore stresska aad u yaraa qofka bini'aadanka hamigiisa uu yaraa laakiin hamiga bini'aadanka ma uu aad u weynaado qofka wuxuu rabaa inuu saacado badan shaqeeyo waa stress fara badan habeenkii inuu soo jeedo maalintii waxa laga yaabaa wadamada qaarkood waxa la sheegay in 6 hours ka yar la seexdo qofka bini'aadanka adiga xisaabi inta aad seexatay xalay waa ogaan doontaa qofka waxa laga yaabaa inuu habeenkii 12 ka seexdo 4 ka kaco 5 shaqo aado galabtiina 6 oo gurigiisa ku soo noqdo marka waxay keentay stress fara badan noloshaas stress korinta ilmaha xilliyada hore familka halkaas wiil wax ku wada cuni jireen happy ahaayeen hadda maanta familkii dhibay noqotay korinta ciyaalkii stress fara badan haddii aan ku nooshay magaalo weyn ilmihiis dilaayo dhibaatooyin marka inta factor oo la sheegay ama inta shay oo la sheegay wax bini'aadanka gacantiisa ku samaystay Afrika colaada dilo gaaja disho qofka waxa laga yaabaa hada Soomaali ka soo qabo badda Malayga oo aragtay intuu dhan yahay 2 mitir oo gaari wax soo dabto ma laha bari wax falanaay ma laha dadkii dil iyo colaad waxay keentay dadka inay macna darro u dhintaan marka adduunku wuxuu noqday in dharag u dhinto in gaajo u dhinto labadana ay tahay wax bini'aadanka oo gacantiisa ku sameeyay waxa laga yaabaa dadka qaar inay soo qoraan qofka waqtigiisa intaas ku sax waaye qofka bini'aadanka waqtigiisa maalina looguma daraayo maalina lagama jaraayo laakiin waxa jiro waxyaabo oo la baaro oo la qoro cudurrada loo dhinto adduunyada waa la qoraa sabaha loo dhinto waa la qoraa laakiin dooda ma naga ah anaga dhinac diini qofka waqtigiisa